then waxay baranaysaa midna ka yimid Mareykanka ama Yurub meelahaas un ka yimid bay baranaysaa then waxay isleedahay kan waa kii ku kaafin lahaa noloshan ka saari lahaa familkiina wax ugu tari lahayd marka asagina wuxuu ugu sheekeynayaa nolol khiyaali ah oo waxba aan ka jirin ayadii ma sii dabagalayso laakiin run ay u maleynaysaa asagi xaas uu leeyahay wadankaas uu degan yahay macquulna ma inuu xaas labaad inta halkan ka wato uu qaado halkaas geesaa ognahay bas uu imaanaya safarkiisa ugu horeeyo asagoo familkiisa kale uga soo tagay inuu dalxiis u socdo ilmihiisu ka soo tagaya waa khiyaanada koobaad uu familkiisu soo sameeynayo marka waxa sabab u noqonaysa ayadii u fududeysa oo macnaha u dooratay ee macnaha dan ku gaarto isagana uu doorbiday macnaha in inta Afrika uu joogo waxa iska dhigta ama uu ku moodo marka waxa qayb ka ah gabdhaha waxa madaxooda bedelayo oo ay u dhahayaan ama kan raacda oo kan Afrika joogo soo kana ku dhaami lahaa waxay leeyahay ayaga been u sheegayaan soo maxaa dhila raga qurbaha ka imaado gabdhaha beenta u sheegaysiin ilaa uu Nairobi ka baxo saantiisa ka qaado gabadhaas uu koolkoolinaya qaarkood waxa loo kireenayaa guri qaali ah oo dhabala wuxuu ugu talagalay asaga inuu waqti la qaato intuu Afrika joogo qaasatan uu Nairobi joogo maalinta uu baxo telefoonka ka dansanaya kulanti wacan daawadal ku soo dhawaada xiisaha wararka on galabta uga doodi doono ragga qurbaha joogo dhibaatada ay ku hayaan gabdhaha Afrika ku nool waxaana doodiga la qayb gali doona Cabdiqaadir Kwaral iyo Cabdiqaadir Koronto iyo Muno soo dhawaada dhamaantiin wadoonahay aad oo maasatahay wadoonahay zamzam Kuwait ما شاء الله هذا هذيك هو بلعبه مركوري ما حس له هاي دبعتها في سبب أي وتهاي والله نفتي ده قبلها أي هذا قريب لكن أسودوه أنت بدل واحد أعضاء إن قربها كي ماذا نحب ضيال حوجات كذا قالوا يعني هاي قبل دي أفريقيا جوكت يصير صار عار منوق وهل كان جوكت يلا جا مثل مسكين وصعبت أيه إنه مدقق جانا هاي حر إلى هاي عبر أسود السعودين marka odiga u yimaado waxa uu soo bandhigay mar inuu wadi doono oo macnaha salax ku soo qaatar baaya inuu odiga macnaha uu wadi doono oo Mareykanka la geenayo ama Australia ama Yurub ama meesho ka yimid marka mar waxa laga yaabaa inay door bido waxa aad ninkii ma xawaa bal sigarisayo fursad macnaha maadaama qurbaha fursado ah dhaqaale in lagu soo biyo oo kale inay door bido oo ay baxdo oo ama ninkan ku baxday ninka asagana oo interest fiiriyo waxa laga yaabaa inuu qoys ku jiro oo waxa dhaha aan qoys ima joogo malaha marka waxa sabab u noqonaysa ayadii u fududeysa oo macnaha u dooratay ee macnaha dan ku gaarto isagana uu doorbiday macnaha in inta Afrika uu joogo waxa iska dhigta ama uu ku moodo marka waxa qayb ka ah gabdhaha هاي ما شاء الله هاي عبد القادر أدينا محاس له هاي كوين أدبر ما سنتهاي دمان برشة الصومالية ميلو باجرتان ويجي السلام لنا runtii qodobkan hadda maanta miiska saaran waa qodob aad xasaasi ah runtii gabdhaha Afrika ku nool ee Soomaaliyeed waxaa jira dhibaatooyin aad u fara badan oo ka soo wajahay rag qaar ee ku sugan ragga dhan ma wada dhigi karno oo ka yimaada dhanka qurbaha runtiina waxaanu la kulanay gabdho fara badan oo Soomaaliyeed oo inta la guursado nololan caadi ahayn la tusiyo bilaha ugu horeeyo hadicin ha kufin ha jabin maxaa ku qaraar ilaa uu Nairobi ka baxo saantiisa ka qaado gabadhaas uu koolkoolinaya qaarkood waxa loo kireenayaa guri qaali ah oo dhabala wuxuu ugu talagalay asaga inuu waqti la qaato intuu Afrika joogo qaasatan uu Nairobi joogo maalinta uu baxo telefoonka ka dansanaya gabadhii waxa laga yaabaa inay xaamilo tahay in maxaa markaas ay walac tahay nolosha ay ku jirto uu ka soo saaray qaar waxa aragnay intay sugayeen ninkii inuu ka soo hadlo 3 bilood 4 bilood guriyii kiradooda lagu yeeshay oo deemakii lagu yeeshay qaar maxaa ay sheeg ubadkaas xitaa meel loo raaca aan lahayn gabadhii waalid lama baraayo asagoo ka baqanayo xaas kale oo xagga joogto runtiina waa arin mudooyinkii ugu dambeeyay aad loo hadalhayo waliba xitaa la qorsheenayo in filmaan laga sameeyo in la sameeyo xafiisyo la xiriiro rag qaar markay halkan imaanayaan in muxuu ahaa ay sheeg markay Mareykanka ku laabtaan in laga daba tago oo xaaskoodii lagu wargeliyo isla markaana familkoodii lagu wargeliyo si dhibaatooyin fara badan oo la dareemay oo ay ugu dambeeyay soo kordhay looga gudbo marka qodobka runtii waa qodob muhiim ah qisooyin fara badanna iyo dhaawacyo fara badanna gabdho fara badan oo Soomaaliyeed u geystay taana waxa sababay gabdhaheenii oo ku sugan Afrika oo runtii u baahan dhaqaalahaas iyo ayagoo raajicinaya ama raba in qofkaas uu Mareykanka ama wadanka uu ku nool yahay inuu geeyo
daldalaal iyo nolol aan muxuu ahay sheeg dhab ahayn ayaa runtii la tusinayaa waalidkuna qayb ayay ku leeyihiin oo markay arkaan in muxuu ahaa ay qoorta u geliyaan marka wixii dardaarana wixii talo iyo tusaalahana qaybaha dambe ee dooda ay noo noqon doonaan. waa mahadsantahay adigana muna kusoo dhawow adigoo nagala joogo gabdhaha adigana ra'yigaaga maxay kula tahay? waa mahadsan tahay Zamzam sidoo kale Koral iyo Koronto waa mahadsan. waxaa salaamaya family xisaab wararka waa idin salaamay. waxaan leeyahay haddaan ka daba tagooti Koral waxaan leeyahay horta badanaa waxaa gabdhaha been u sheegaa nimanka ayagoo ka dhigaya inay nolosha hore ay ku jireen nolol ka duwan gelinayaan. so waxaa madaxooda bedelayo oo ay u dhahayaan ama dee kan raacdaa oo kan Afrika joogasho kana ku dhaami lahaa waxay leeyihiin ayagaa been u sheegayaan. so maxaan dhihi lahaa ragga qurbaha ka imaado gabdhaha beenta u sheegaysiin iska daaya. laakiin muno inta aad muxuu ahay sheeg lacag dooran lahayd midkan miskiinka ee Afrika joogo ee alyoomkaaga heli karo oo kuu shaqo tagi karo aan ogtahay inuusan meel kaaga socon inta dhibaato aad la kulmi lahayd adoo dareemi kara dhibaato saaxiibtaa ku dhacday adoo u jeedo haddana inaad u bararto soo qaybta gabdhaha ma lahan qaybtaas way leeyihiin laakiin waxay isleeyihiin ayaga show kan Afrika kula joogo maxaa ku dhaama adoo kan qurbaha jira raacada oo ku bixiyo oo hadhow familkaada wax u tarto oo aadna midaas ka faa'iidadaas ay gabdhaha fiirinayaan ma ooyaane lacag uma dooranayaan. laakiin ee soo ma fiicnaan laftigeeda in adkeysaan oo macna ninka maadaama uu yimid waxa laga yaabaa gabadh markay halkan joogto in waalidka Soomaaliya uu joogo oo Nairobi uu joogin oo kale waxa laga yaabaa in telefoon ay ku dhameeyaan macnaha xataa odayga iyo hooyada ka cabsanayso in adeerka camal ama adeer isku fiican yihiin gabadhii oo kale oo xogaa reemigaan aan leeyahay macnaha telefoonka la igu dhib adeer macnaha ninkaan rabaa macnaha inaan oo dhameyso waa wada heshiinay halkaasoo ka yimid macnaha wixii dhan meerkii macnaha wixii waa la fududeynaa pointiga sanseena kuwina sina nafta in loo fududeeyo ani xataa daan ku darsado ra'yiga aan ka qabo ani 100% waxaan saarayaa ragga maxaa yeelay ayaga ayaa dibadda ku maqan gabdhihi inta badan haddaan Nairobi soo qaato oo hadda joogno ku noolnahay waxaa jiro gabdho badan oo la nooleen familkooda waxay nool yihiin kaligood guryo kiraahay ku jiraan at least marka waxay mar shaqeeyaan waxay u baahan yihiin cid kirada ka dhiibto waxay u baahan yihiin cid dhaqaale ay meesha wadanka ku joogaan ay siiso then waxay baranaysaa mid ka yimid Mareykanka ama Yurub meelahaas ka yimid bay baranaysaa then waxay isleedahay kan waa kii ku kaafin lahaa noloshan ka saari lahaa familkiina wax ugu tari lahayd marka asagina wuxuu ugu sheekeynayaa nolol khiyaali ah oo waxba aan ka jirin ayadii ma sii dabagalayso laakiin run ay u maleynaysaa asagi xaas uu leeyahay wadankaas uu degan yahay macquulna ma inuu xaas labaad inta halkan ka wato uu qaado halkaas geesa ognahay bas uu imaanayaa safarkiisa ugu horeeyo asagoo familkiisa kale uga soo tagay inuu dalxiis u socdo ilmihiisu ka soo tagaya waa khiyaanada koobaad uu familkiisa ku soo sameeynayo tan labaad gabadha halkan joogtay ku sameeynaya uu imaanaya dhaldhalaal been u tusaaya adii dhowr maalin ay casho la geenaya chicken iyo pizza adduun la siinaya wixii gabadhi markay aragto wax kale dareemaysaa waxay isleedahay waa qof caadi ah ku kaafin kara markaas ayuu asagan intuu aroos yariis u sameeyo oo xitaa la ogaan xitaa qaarkood qudbasir wax la dhahay ay jira ay sameeyaan bilaha ugu horeeyay uu ka tagaaya dan gabadhi noloshii runta ahayd ay dhaxgalaysa adhow waxa laga yaabaa inay caloosheeda ilma galaan waxa laga yaabaa weligiis binuusan soo wicin dad badanna waan aragnay sidaas ku dhacday okay laakiin kuwina dayaca meesha uu ka yimid markaan ka fiirino ninka asaga dan uu leeyahay lacag yarna uu haystaa dibadna uu ka imaaday adigan qof weynaa tahay muxuu ahaa oo qaangaara dayaca meesha uu ka jira waxay tahay qofkan baasaboorkiisa inaad koobi ka baxsatid inaad dabagal ku samaysid inaad familkiisa qayb ka mid ah baratid maxay u dhici lahadaa in xogta qofkaas la raadiyo sababtay ku dhici lahadaa maxay والله دمر كرت اسكو مد maahan qof walba ilaahay dabacad goonihu siiyay aqligiisana qof walba aqligiisa ilaahay ba hortu dhameystiray laakiin walka aqli badan yahay dad baa jiro waxaas aan ku dhiiran karin oo hadiiba noloshaas bas la tuso inta yartoo dhaldhalaalkay fiiriyaan hadhow maxaa ka soo gaari doono qofka ma taqaanid waxa jira xitaa qaar uu gabadha familkeeda aysan aqoonin ma barayso walaalaheed way ka qarinaysaa wuxuu leeyahay aniga haduu koobnaato then dhaqaalaha ka soo galaya iyo waxaas ay fiirinaysaa ma fiirinayso nolosheedii dambo aayaheedii dambo hadii lacag la ubad dasho ilaa waa gabar hadii ubad dasho ubadkeedii ma heli doona aaba xanaaneeyo kama fikirayso marka hore lacagta ka fikiraysa ay labada marka loo fiiriso marka dumarka khaladka ma laha maxaa yeelay mid hore waxaa diideen in la qaba waa diideen waxaa dhahdeen anaga hadii ninka uu banaa qabo lama tusi karo loo sheegi karo koo waa ka qariyay markii labaadna maada adkeen ninkii macnaha wax waxay dhexmar lahaa ayna macnaha ama meer ma adkeenin ninkii ina ogaataan ambassador koobista
marka labada dhacba soo dumarka qaladka ma laha maxaa ragga u saaraysaa ha horta horta hadaan kaa dhexgalo haymana labada dhinacba qaladku waa la leeyahay asagaba ninkan gabadhan gabar walaashiis oo kaleeto waaye gabar way dhashay way la dhalato wuu dhalay inuu qayaana may ahayn ayagana gabdhaha way fiicnaad inay iska ilaaliyaan ragga noocaas ah balse hadda labada dhinacba waa la qalday laakiin dumarka loo qof qalad kala saari kara ah may gabdhaha loo maray qaldameen ninka xalkiisa qalad waa okay asaga nafley waaye laakiin iyagii damaca ku jira laba marna way diideen inay macnaha inay sheegaan macnaha inuu naaqabo ninka haddana qabo waa ku nacdeen tan labaadna macnaha haddana macnaha inaad si adkeenin oo ninkaas aad ogaata ilaa iyo meesha ugu dambeeya uu ka yimid si aad kula xilin kartaan beri kiina waa ka gaabiseen marka dumarkii laba jeer ayay aragtideeda qalad in leeyihiin halka ninka hal waxba leeyahay way jiraan hataa kuwa oo diyaar u ah nimanka oo naagaha qabaan waa yartahay laakiin aad u way yarta laakiin way ani ahaan waa jiraan kasoo horjeeda hay ani ahaan adoo gabar ah inaad guursatid nin xaas leh waa kasoo horjeeda maxaa dhacay hadda qof walba rabitaankiisa soo maahan ka aniga ahaan waa kasoo horjeeda way u badan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed horta qofka ninka ragga ah inta badan hadda aan Afrika hadda ku noolnahay way yar tahay nin kaafin kara familkiisa haddana ku dari kara gabar kale ma adiga kaafitale ma diidabsan inuu naaqabo dhana diidatahay may waa diidanahay laakiin qabo dhana kasoo horjeeda laakiin waxaa jirto waxaa la yidhahdaa mas-uuliyadda inta badan ninkan markuu xaas leeyahay oo reerkiisa dhaqanayo waa nin mas-uul qaadi karo oo mas-uuliyad qaadi karo marka bala dhihi karaa marka inta badan maadaama ninkan uu mas-uuliyad qaadi karo sidaas ayay ku galaan gabdhaha oo ay ku xushaan ha waxaa jiro gabdho ku xushaa jiro gabdho waxaa jiro jecelba inay shukaansadaan ama la haasaawaan ama ay guursadaan ragga xaasaska leh because waxay dhahaan qof wax garad ah waaye qof wax yaqaano waaye laakiin ani lama qabo kulli ra'yigaas waayo qalad ka soo dhaco macnaha ninka qarsado oo naagtiisa macnaha ka qarsado inuu guursado gabadha iyo ninka macnaha wixiisa waadix soo dhigto gabadhii ku gasho tay dhibaatada badan ay ka imaadaa yaa u badan gabadhii macnaha ninaa qabo og oo ku gashay iyo mid macnaha laga qariyay ee gashay iyo dhibaatada badan ku dhacdaa kan laga qariyay inta badan ku dhacda sababta ninka marka mas'uulka ah aniga waxaan aaminsanahay lacala hadayba dhacday gabadhan inay guursato ay gasho family yani dhisan ay ku biirto ayaan la qarinin banaankaa la keeno يعني قبلها ربع إنهم جورسوا وحاسكي سكرات أشتغل هذا هو كل كلمة وكاكري وديدي معناها أكو شيء قاعد وديدي على رأيي إننا بمرة ولا بتسكر أصلا أبغى جعلك أكون عاي سنو دويني كمان ما حقيقة أنت بس تاز كمان دافع حتى وحكي الاسكبر دافعين ناقبس حتى أصحاب صور الموضة أهم قبلي ويلا الصوص السموذي قال حتى قبلها أصحاب تأتيه مركا أمانة جورستيد حريرك يكون جلسة ما حدا عناية قرستك هذا قول الدسمة بس يجد انت أنا صعبت يا كم تاي لكن ويجري حاسس أقول ضد أوصل لعبنا كنتي وحاجة لباتوين فربضن xaasaska xitaa xagga jira naftirkooda ninkoodii oo soo baxay oo yimid Africa sababta ay naftirkooda xaaladiis ula socon waayeen oo ay free uga soo dhigeen oo yani ay u dareemi waayeen in ninkan uu xaas kale leeyahay oo qof kale uu la nool yahay ayada naftirkeeda waa qayb ka mid ah gabadhii oo ayadana dayac kale muxuu ahay sheeg la kulmayso ninkii uu la joogaa aqoon ma hadda bari marka ay weydiisid oo ninkaas intee ku sheegta hadii la dhaho ما تقان وحكوا له هذا صاحب كيسة وحلي جري هبل باسبور كيسة كوبي كما يشتو صور حتى وحلقيها بقاركوز إني سكين الناس ورتقلا مركا بروبلم فربنا يجرو كنتي فيلمان هذا اللي قسمينا يجري على انتاز وحلي يشيجا ودم ذقار إن تعوذ فربنا يجارتي كدينا الله سمينا يا حفيسيو loo dacwoon karo gabadhan dhibka noocaas uu ku dhacay waana rajeynayaa dadka dibadda jiray in arintaas ay ka shaqeeyaan runtii waa dhibaato aad u xoogan oo saameyn ku leh gabdhaha ku dhaqan qaaradda Afrika laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay kaliya ragga kaliya meeshan ma u imaadaan shabaq uma daadsana gabdhaha ku dhaqan ayaga dibadda shabaq u daadsan yahay ayagana ma laga yaabo marka laakiin halka wali ma dhicino wali waxa aan arkin hada macnaha kulli ma qof inaan arta aan laakiin ma arkin mana sheekada ku maqlin in gabar ay soo baxday ee ka imaaday qurbaha ama Yurub ama Mareykanka ama Australia oo Afrika ay imaaday nin jacayl ku abuurtay macnaha kulli asigu kuma soo baxay waxa kulli uure u sabab dhahay ninka sax ma adii si uu leeyahay leeyahay macnaha وكودا إزدياري أو رفع فاصل أما بيقول بحنا متعرف إيه كبد استوري ما دعم أما ما قشين مركز إذا كبد بهور بقالة صور كريم تبدأ لو بحا أو ما صورها منها لكن نمك عايز كذي نمك اللي بتوه بدن
hadda laakiin waa soo tuftay waa soo tuftay hadda bointii su'aasha ku weydiiyay maanta dhan waxaa dhigay gabdhaha dhibaatada iska leh moogtaa ما لكن ما نوع عادي ما تعديل لو قلنا دمرك رجع وبدن عادي كريه ragga u badan haddaan barnaamijkeena kusii soconno weli meeshaad nagala socotaan waa xiisaha wararka haddaan barnaamijkeena kusii soconno Muna maxaa ka leedahay doodaas waxaa la yidhi inta badan eedda waxaa la saaray ragga dibadda ka imaado inay dhibaatooyin badan u geystaan gabdhaha jooga Afrika weli ma aragtay mise ma la kulantay qof dhibaatadaas loo geystay waa arka gabdho badan waliba gabdho badan oo ayagoo niman naaga qabaan oo xagga ka imaadeen guursadeen waliba uur u yeeleen ka tageen haddana ilmihii ku rafaasan weli way badan yihiin way tuuran yihiin wuxuu yidhi Quarrel saan doodiis ka dhadhaminaya wuxuu dhahay qayb way ka leeyihiin dumarku yidhi maxaa leedahay adiga maya dumar xagga intuu ka imaada inta ninku guursada ka taga lama sheegin maya qayb kule dumarka inay fududeeyaan ay ogolaadaan inaysan ninkaan waxba baaritaan ku sameynin iska guursato way jiraan bad maxaan dhihi lahaa ayagana gabdhaha ha iska ilaaliyaan ragga qurbaha ka imaada inkastoo aan hata aad jecleen ay hadda ma jeclaan lahayd nin dibadda ka yimid la guursato maya sukaan saataa ma jeclinayo kuwine problemka kama taagna keliya ninka naagta qaba keliya problem kama taagna asagoo iskaabula oo aan xaas lahayn iyo asagoo xaas leh labada boorta dhibaatada way ka imaataa qofkan ma rabo inuu Afrika gabar ka kaxeeyo ma rabo laakiin wuxuu rabaa 3 bilood inuu soo joogo waqti ku soo qaato marka intaas waqtigu qaadanayo qof waqti la qaato ilaa nafle waa mugtaa qof waqti la qaato uu iska rabaa asaga gabadhan laakiin ayadana waxay leedahay dana fara badan hami fara badan iyo mustaqbal fara badan iftiimaayo daldalaalka beenta marka loo bandhigayo kaliya ma soo bandhigaan ragga xaasas kale ayagoon xaas lahayn xagga ka imaado intii imaanayo oo gabadhii la gooynayo oo ku kaxaysanaya dhahayo nolol been u sheegayo ayadana way jiraan labada dhinac way ka qayb qaataan marka dhinaca inuu ninka xaas leeyahay kaliya ma dhibaato asagoo xaas leeyahay xitaa been u sheegaya inuu ku moodmoodo rabaa inta uu joogo ku moodmooda kadibna magaaladiisu iska waxaan intaas sidar koynay gabdhaha laftigooda inay ku xiraan dhaqaale kaliya maaha noloshoodii ilaa maamulka yiraahdo nolosha guurka waa nolosha ilaa mustaqbal qof uu ka dhinto oo la joogaa laakiin marka dhaqaale la yiraahdo iga qurbaha oo iska jira oo ka imaan kara oo soo fashilmi kara sharciga la soo kasari kara wax iska dhici kara dhaqaale lacagta ay ku fikirayso way baabi'i karaan way dhamaan karaan laakiin waxa rasmiga ah waxa way qofka aan nolosha la wadaagaysid waa ku tarsanaysid in marka uu yaraan marka hore iska fiiriso qofka macnaha miisaan iska saarto qof aad dhaqmi kartaan miya qof macnaha wax ciyaar leh wixii ku koobayeen miya marka in la adkeeyo marka hore guursanayso waxa macnaha si fiican uga fiirsatay ninka soo carif kale oo qofka mar qaar oo ka badan yahay oo laga yaabo inuu macnaha ku turtureeyo laakiin uu yaraan inaa macnaha ku dadaashid xaggaaga in miisaan iska saarto oo wax la hubo oo asleedahay waxa mustaqbalku ay gaari doonaan ilaa guurka waxa waa in lagu dago oo taxnaado macnaha wax oo waqti wax lagu nasto ونقطة مركز أنا ويران بالأد مثلا كاس حتى قبل أتين عين في سنة قبل عوا نفتقينا وقاعد أركز ولا سنة كله دقيقة إن شاء الله أنا وحنا كسر بنانا دايا ما دام قريبين دمسون قارني runtii horta ciwaankan ama wadoodan waxaa loo baahan yahay in laga wada qayb qaato si aanan muxuu ahaa dhibaatada aysan usii badanin runtii aniga waxaan garanayaa gabar intuu nin imaaday muxuu ahaa guri weyn u dejiyey oo kiradeeda ay zaa'id tahay waliba aan ahayn mid yar aysan ahayn gabadhii markuu ka tagayna telefoonadii uu ka dansaday kira lagu leeyahay caruur uu ku dhaafay waliba xitaa mudduu joogay xitaa magaalada gabadhaas qisada ku dhacday kadibna lagu qasbanaaday in gabadhii lacag loo aruuriyo si kiradii looga bixiyo loo aruuriyo lacagii gabadhii ay joogi weysa magaaladii kadibna Soomaaliya dib loogu celiyay dhibkaas oo dhanna waxa ku kalifay waxa waaye muxuu ahaa dhibaatada soo gaartay waxaan leenahay marka ragga qurbaha jooga ama ragga qurbaha ka yimaada dhibaatada laga daayo gabdhaha Soomaaliyeed ayagu way baahan yihiin dhaqaalahaas way u baahan yihiin kirada wax ka bixi way u baahan yihiin waalidkii iyo muxuu ahaa cadowgii saaxiib ay leedahay in la yiraahdo hiblaayo waxaa guursada nin ka imaaday muxuu ahaa isheeg lugooyo laana ka imaaday aan iraahday wadamada maxaa la jiray maamul goboleedyadii afka igala moogtaa
marka ii sheeg baasaboorkaas gabdho fara badan oo qiimeynaya jiro lacagtaas gabdho fara badan oo qiimeynaya jiro inkastoo nolosha Afrika aad u culus tahay haddana dhibka laga daayay leeyahay gabdhaha ayagoo ku sugan dibadaha ee ragooda usoo dirsanaya Afrika adinkana waxaa lidinkaga baahanyahay inaad control ku sameysaan raggiina dhibaatada ay geysanayaan sababtoo dhibaatadaas way idin saameynaysaa gabdhaha Afrikana waxaan leenahay iska ogaada iska controla nikaaxa inta uusan dhicin ogaada qofka aad nikaaxsanaysaan iyo xarigiina meesha uu ku dhacayo inaad waalidkaaga la socodsiisid wax qarsoodi la yiraahdo ma jiraan meher xadkii wixii dhan diinta islaamku ka hadashay hadda meher xadkii way ka weyntaa arrintan lacagta safiirinina dhibaatada kaaga imaan doonto fiiri iska hubso ninkaad muxuu ahaa nikaaxsanaysid baasaboorka koobi ka dhaho muxuu ahaa dokumentiyada qaar koobi dhaho xogtiisa ogow wax badan ogow adinka dhan sir baarayaal noqda sir naagad lagama sir gaarin waa maqli jiray maxaa dhaca kuwa hadda feeraamay ka dhawan yihiin ma aqaane bal wax badan leeyahay aan ka wada qayb qaadano sidii loo horumarin lahaa dadkeena bulshadeena qaasatan aan dhowrna gabdhaheena Soomaaliyeed runtii ma wada xuma ragga dhan ma wada xuma ragga qaar waa wax dhibaatooyinkaas hayo gabdhaha kale ayagana dhaqaale raadiska ayagana waxaan leenahay dhaqaalaha fiirinina waxa ka dambeeya fiiriya waxa idin muuqanaya fiirinina haddii ay jiraan rag qurba jooga oo ku sugan magaalada Nairobi doodaas way furantaa doodan qaybo badan ay yeelan doontaa nagu soo biira gabdho qurbaha ka yimid haddii jiraan nagu soo biira dad dhacdooyin soo noocan oo kale ay ku dhacdana nagu soo biira xiisaha wararka adinka iskale adinkoo idin furan yahay mar walbana naga diyaara idin nahay aniga inta soo baxay ahaymuno maxaa kusoo gabagabeyn lahayd aakhirkii maxaa kusoo gabagabeyn lahaa horta ragga qurbaha ka yimid wixii naaqabay waxa naaqabin boo gabdhaha qiyaanada laga daaya Afrika joogan gabdhaha ayagana waxaan dhihi lahaa ragga si fiican ha iskagu hubiyaan iskana ilaaliya ragga qurbaha ka imaada intaas kusoo gabagabeyn insha Allah kuwin adna aniga waxaan kusoo gabagabeyn lahaa misna dadkana daawanaya aan ogeysiinaya aan u sheegaya inaanan guurka aanan dhibaato ka wadin yani guurka inuu xun yahay ma sheegayno dadka xun ee guurka sida xun u isticmaalay un baan leenahay ha joojiyeeno guurka waa naseexo wax lagu daga waaye guurkana badiya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay tazawwaju alwadud alwalud badiya yani guursada gabdhaha isjeclaysiinta badan oo dhalmada badan marka waxaa leenahay dadka dibadda jooga oo dadka dhibaateynayo ka daaya dhibaatada qasab adinkana idin saameyn doontaa mustaqbal ayaa leedihiin ilmaha dhasheen ilmihiina way saameyn doontaa dhibaatooyinka inta ku geysateen ilmihiina laga jari doonaa waxaan leeyahay idima dhibaateynayno cunsurinimo idinkuma wadno dhibaatada bas joojiya waa idin waaninayna intaas ayaan idin sheegaynaa barnaamijka intaas kusoo gabagabeynayna xiisaha wararka waxaan maanta kala qayb galay Cabdiqaadir Koronto Cabdiqaadir Kwaral iyo Muno anigoo zamzam oo idin daadinayay waxaa idin leenahay kulanti dambe oo xiiso leh